ku soo dhawow janalka Galgalan News taabo calaamada guduudan ee subscribe kadibna ku dhufo gambaleerka si aad u heshid mar walba barnaamijyada iyo wararka aan soo gelino Galgalan News. wafdigan uu horkacay wasiirka amniga dowladda Puntland Asad Maxamed Galan kana koobnaa wasiiro xildhibaano iyo saraakiisha ciidamada dowladda Puntland ayaa maanta lagu soo dhaweeyay degmada Waaciye ee gobolka Karkaar. ujeedka wafdigan ayaa ahaa kurgelista xaaladda amniga iyo abaaraha ka jira gobolada Karkaar iyo Bari. waxaana ku soo dhaweeyay wafdigan degmada Waaciye maamulka degmada odayaal haween iyo waxgarad. soo dhaweynta kadib ayaa waxa wafdiga socdaalkooda ka warbixiyay gudoomiyaha degmada Waaciye Isxaaq Axmed Xasan. waxaan joognaa maanta aan ku suganahay degmada Waaciye xarunta dowladda hoose degmada Waaciye wasiirada soo socday muxuu ahaayay xog deegaanka inay helaan waxay soo mareen Qardho hadda waxay joogaan Waaciye waan soo dhaweynay oo waxaan ku soo dhaweynay degmada Waaciye waxaan uga warbixinay xaaladda guud ee muxuu ahaayay deegaanka degmada Waaciye muhiimadda ugu ballaaran aan ka hadalnay waxay tahay amniga iyo sidii wax looga qaban lahaa. amniga Puntland guud ahaan waa fiican yahay, amniga degmada waa fiican yahay, laakiin waxyaabo lagu shaqeyn lahaa ee baahiyaha taagan sidii loo gudbi lahaa. gaar ahaan waxaan ka hadalnay arinta shirarka oo degmada Waaciye tahay meelaha ugu shilal badan muxuu ahaayay Puntland gaar ahaan muxuu ahaayay gobolka Karkaar. muhiimaduna waa sax dowladnimo ay tarjumaysa in xukuumaddu siyaasadeeda ay shacabkeeda gaarsiiso, shacabkuna muxuu ahaayay uu baahidiisa muxuu ahaayay uu dowladda gaarsiiyo. waan soo dhaweynaynaa xukuumadda madaxweyne Deni iyo xukuumaddiisa iyo siyaasadda cusub oo ah in la isla xisaabtamo, in muxuu ahaayay baahida muxuu ahaayay dadka laga turjumo, in dowladdu aragtida muxuu ahaayay shacabka ay ku shaqeyso, in dowladdu la xiriirdo muxuu ahaayay shacabka, in la isla xisaabtamo, in qofkii shaqeeyana abaalmarin la siiyo oo wanaag lagu abaalmariyo qofkii aan shaqeynayna lagu abaalmariyo xaq u leeyahay oo xabsi iyo muxuu ahaayay iyo xariga. aad baan u soo dhaweynaynaa ilaahay haddana talaabooyinka dowladdu ay qaaday ha noqoto gobolada Sool oo la aaday, Sanaag oo la aaday, Bari oo la aaday, Karkaar waanu muxuu ahaayay soo dhaweynaynaa. insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanu wadada dowladnimada qaadno isbedel khayr leh baan rajaynaynaa. waxaan doonaynaa muhiimaddu inay ku shaqeyso rayga dadka iyo baahida dadka. Puntland TV degmada Waaciye ee gobolka Karkaar.